Bismillahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada qaybta ugu dambeysay taxanihii aan kaga hadlaynay maalmahan xanuunka macaanka. Insha Allah qaybtan waxaan kaga hadli doonaa cuntooyinka muhiimka ah in dadka sokorta qaba ay ogaadaan, kuwa u roon sokorta iyo kuwa u daran. Waxaan kaloo aan ka hadli doonaa daawo direedka ama geedo daaweedka cilmi baarayaashu ay xaqiijiyeen inay sokorta wax ka tari karaan. Haddii aan ka bilaabo daawo direedyada, geedo badan ayaa jiro oo cilmi baarayaashu ay ka sameeyeen diraasaad kuwaasoo xaqiijiyay in sokorta siyaabo badan wax uga tari karaan. Waxtarkaas oo noqon karo in sokorta hoos u dhigi karaan, in insuliinka ay ziyaadi karaan firfircoonidiisa. Waxaa kaloo la arkay in geedaha ama dhirta qaarkood ay ka hortagi karto in insuliinka uu jirka la qabsado. Sidoo kale daawo direedka qaarkood waxay yareeyaan ciladii aan soo sharaxnay shalay oo ahayd glucose intolerance oo ah jirka inuusan glucose-ka si fiican uga faa'iideysan karin ama sokorta uusan xakameyn karin. Marka daawo direedyadaas way badan yihiin. Waxaa ka mid ah dacarta, waxaa ka mid ah qorfaha, waxaa ka mid ah xulbada, waxaa ka mid ah huruudda, waxaa ka mid ah sanjabiilka, waxaa ka mid ah toonta, waxaa ka mid ah geedkan moringaha loo yaqaano, waxaa ka mid ah geedkan loo yaqaan ginseng iyo rosemary. Intaas waa example ahaan usoo qaatay, laakiin way badan yihiin daawo direedyada badanaa sokorta loo isticmaalo. Badanaa waxaa la yidhaahdaa daawo direedyadan waxay wax ka taraan keliya dadka qaba sokorta type 2-ga, dadka qaba type 1-ka waxba kama taraan totally. Marka sidoo kale waxaa lagula taliyaa khaasatan dadka ku sugan marxaladda ka horeysa sokor rasmi intaysan naqan, qoladaas oo loo yaqaan pre-diabetic oo aan kasoo hadalnay maalmahan. Haddii aan u gudbo marka xagga cuntada oo iyadana muhiim ah, sidaan shalay soo sheegnaba waxay ka mid tahay cuntada oo la habaysto 5 qodob oo muhiimka ahayd si sokortan loo xakameeyo loogana hortago inay dhib ku keento. Cuntooyinka marka badanaa dhakhaatiirta qoloba si ay u abaaraan, qolo cuntooyinkii kala qaybiyaan. Laakiin aan si fudud aan rabaa inaan idin fahansiiyo anoo isticmaalayo wax loo yaqaano plate method oo ah saxanka. Waxaa la yidhahdaa badanaa qofka markuu cunto soo guranayo saxankiisa waxaa la yidhahdaa 50% in ay cagaar tahay. Cagaarkaas waxaa ka mid ah koostada ka mid ah, broccoli-ga ka mid ah, saladka noocyadiisa kala duwan ka mid ah, digirta cagaaran ka mid ah, cabbage-ka ka mid ah, karootada ka mid ah. Marka aad midka rabtid dooro ama 2 isku darso ama 3 isku darso, waxaa la yidhahdaa 50% saxanku waa inuu cagaar u badan yahay. 25% marka waa inuu borotiin noqdaa la yidhahdaa. Borotiinkaas wuxuu noqon karaa kalluun, wuxuu noqon karaa digaag, wuxuu noqon karaa digirtan kale oo caadiga ah oo tan cagaaran maaha tan gaduudka ah. 25% kale soo hara waxaa la yidhahdaa waa inuu noqdaa carbohydrate jirka faa'iido u leh, kuwaas oo laga wado cuntooyinka brown-ka ah. Rootiga brown-ka soo geli karo, wixii qamadi laga sameeyo soo geli karo, canjeero qamadi laga sameeyo xitaa soo geli kartaa. Bariiska brown-ka soo geli karo, cuntooyinka brown-ka ah oo carbohydrate-ka ah waa soo geli karaan. Waxaa kaloo halkaas la soo gelin karaa caanaha aan dufanka lahayn xataa wuu soo geli karaa halkaas. Marka waa cunto in loo habeeyo qaabkaas mar walba wax cunaysid. Marka su'aasha meesha ka dhalanaysa waxay tahay ma jiraan cuntooyin aan ka fogaanayo totally aan u dhowaanayn oo sokorta u daran. Dabcan way jiraan. Cuntooyinkaas badanaa waxaa la yidhahdaa cuntooyinka horta wixii saliid lagu shiilay oo dhan waa inaad ka fogaataan. Waxaa ka mid ah jibsiga ka mid ah, baradhada la shiilay, waxaa ka mid ah sambuuska ka mid ah, bur saliidka ka mid ah, wixii saliid lagu shiilay oo dhan horta inaad ka fogaatid waa muhiim. Sidoo kale cuntooyinka la soo warshadeeyay oo gasacadaha ku jiro waa inaad ka fogaatid. Maxaa yeelay cuntooyinkaas badanaa waxaa lagu soo daraa cusbo iyo waxyaabo xifdiyo oo preservative ah oo aan u roonayn dadka sokorta qaba. Sidoo kale waxaa ka fogaanaysaa cuntooyinka baruurta leh sida hilibka oo kale. Hilibka aan baruurta lahayn oo dhaylada ah oo biyo lagu kariyay oo aan saliid lahayn oo aan la shiilin wuu cuni karaa qofka. Waxaa kaloo qofka lagula taliyaa inuu ka fogaado caanaha dufanka leh iyo wixii laga sameeyo caanaha oo subagga ku badan yahay sida jiiska oo kale, farmaajada oo kale. Ayagana uma roono qofka sokorta qaba inuu ka fogaado waaye. Sidoo kale cunto walba oo sokor lagu soo daray waa inuu qofka ka fogaadaa. Juiceska ka mid ah sokorta lagu soo daro, shaaha sokorta lagu daro, wixii sokor lagu daro inuu ka fogaado. Sidoo kale qofka inuu ka fogaadaa macmacaanka, xalwada, buskudka, keega, pastries-ka oo dhan waa inuu ka fogaadaa qofka sokorta qabo. Sidoo kale waa inuu ka fogaadaa qofka hilibka la soo warshadeeyay sida hilibyadan oo hot dog iyo sausage-ka iyo hilibyada la soo warshadeeyay qofka sokorta qabo inuu u dhowaan waayo totally. Mid ugu dambeysa waxaa waaye fruitka la qalajiyay
waa inuu ka fogaadaa iyadana ma rabo in dadka sokorta qabo maadaama biyihii dhan laga saaray oo macaankii keliya uu soo haray sokorta wuu kiciyaa. Sidoo kale junk foodska oo dhan soodhada ka mid ah cabitaanada aashitada leh waxyaabahaas oo dhan asna waa muhiim inuu ka fogaado. Dad badan marka waxay aaminsan yihiin haddii qofka sokor lagu sheego waxa loo ogol yahay inay xadidan yihiin. Taas horta waa fikrad qaldan ay dadka qaar iska dhaadhiciyaan. Wax lagu ogol yahay iyo wax lagu diidan yahay waxaa badan wax lagu ogol yahay. Xataa haddii ay kaa hayso oo aad jeceshahay cuntooyinka qaar iyadoo si dabiici ah loo sameeyey oo waxyaabaha sokorta u roon laga sameeyey ayaa isticmaali kartaa. Cuntooyin waxaa jira oo lagaaga mamnuucay qaabka loo sameeyey sida wax la shiilay oo kale kuwaas foorno ayaa ku samaysan kartaa ama air fryer ayaa ku samaysan kartaa. Marka waa muhiim inuu qofka aqoon u yeesho waxa loo ogol yahay iyo waxaan loo ogoleen oo uusan isku ridin gaajo sokor ay hayso darteed maxaa yeelay sokorta wax tagay maahan oo waxa la noolaanaysid. Marka waa muhiim inaad la saaxiibtid oo wixii u daran aad ka ilaalisid wixii u roon aad ku dadaashid. Marka intaas ku soo gabagabeynaa cashirkeena sokorta ku saabsanaa waana mahadsantihiin.